السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ونعيمة هلك iga daawanaysaana waa janalkeena nala dabaalo family maalin cusub muuqaal cusub waa maalinimo arbaca ah ma sha Allah taariikhdu waa 16 bisha June 2021 soo dhawaada Naciim maxay wadaa maanta waxaan wadaa maxaan ahaa janalka cusba ee aan sameeyay yaa la la'ay waa la raadi soo dhawaada waxaan soo dhigay muuqaal aan ku sheegayo in janal cusub aan sameeyay aan ugu talagalay walaalihii danaynayay dufin ilaaliska saacadees ma dheeyno dufin ilaalis dufin ilaalis yani inaan hilibkii aan iskaga ridno xeertii aan iskaga dhilaalin hilibka u baahanna marabna inuu naga dhaco hilibka iyo muxuu ahay lafaha iyo muqaa u baahanna ee waxaan ka wadaa dufinka inaan iskaga dhilaalino oon wixii aan u baahnayn extra la yidhaha yani jirkeena inaan ka dhigno minimalism waxaa la yidhaha wixii yani intii aad rabtid inaad reebatid wixii aadan u baahnayn oo beer dara ahne iska reebtid soo dhawaada waa Naciimii kaftankeedii banaankaan fadhiyaa maasha Allah maxuu ahay waa ilaahay mahadiis dacwo ii imaatay oo ah channelkii uma jeedno Naciimo aad oo cusbaayo aad samaysay walaalay WhatsApp-kii lagu soo dacweeyay waxa lagu soo dacweeyay WhatsApp-kii wuu buuxa walaalihii inaan channelkan sameeyay waa sheegooya wili xagee ii joogaan oo warsanooyin ma sha Allah inay la joogaan waa ku faraxsana laakiin kuwii horaaba oo ii soo duubaan waay meelan ku dhageysto waxa kale oo dhacay hatta telefoonki inuu iga buuxsamay oo haddaan wacay uu ii wactameenin haddii la isoo wacay oo muxuu ahay aan qaban karin maanta oo dhan qoraal leh inaan qoro oosan yeelaynin inuu wactamo wuu buuxa wixiina ma raba inaan muxuu ahay aan daadiyo sababtoo waa codadka la iisoo duub oo weli aan dhagaysan qaarkood 12 daqiiqo ay soconayiin qaar ka badan ay soconayiin wixii oo dhan way ii yaalin oo waxaan rabaa inaan dhagaysto markaan dhagaysto kadib haddii walaal aan hagay oo fahmay meesha aan aadnay oo yimaado markaas oo muxuu ahay aan iraaho khalaas meesha okay hal si usoo kala horeeyeen anigan aan u dhagaysto qof walba iraa xagga luuqaasaan joognaa aad maanta waa ka gaari waayay inaan dadkii aan wada dhagaysto intii aan dhagaystay waan soo diray oo waxaan dhahay channelkaan aan sameeyay aan ugu talagalay maadaama dadkii ay bateen yani hal qof iyo laba qof iyo 10 qof iyo 20 qof ma tihiin ma samayn karin marka inaan qof kasta aan qadkiisii gaar ahaaneed aan ugu diro iraa saana samayn weey maadaama iscaatees afka kaliya ka fudud yahay ani Naciimo waxaan ka aaminsanahay idinku waxaa ka aaminsantihiin inaan kala aragti duwan laga yaabaa ana waxaan ka aaminsanahay iscaatees marka aan dhahayo miyalin halinta kooga hor inaan sameynayo ugu muhiimsan miyalin halinta maxaa waa yani waxa waaye mind control marka horeba inaan saydariyatul aqliga saydaridiisa inaan xakameynta aqliga xakameynta maskaxda midka ugu muhiimsan kooga hor waa taas inaan maskaxdeydii iyo aqligii aan ku xakameeyo jihadan ayaan hadda koroynaa ani saasaan ka aaminsanahay kooga hor inaan muxuu ahay maskaxdii aan kontroolkeeda dhan ee gacanta iyo aqligayga uu soo galo oo ku wajahnaa jimacsigii iyo hilibka iska ridideedii kadib haddana qorsho aan samaysto kadib qorshihii haddana baleen markaan u sameeyo qorsho baleen B inaan leeyahay saan hadday suurtagali wayso maxaa haddana baleen B-gayga uun ku baxsan karo ee tahay sababtoo caqabada iga hor imaan karto waa inaan sii diyaargaroobaa aan u diyaargaroobaa baleen B-gayga uu noqdaa qorshayga koowaad kan waay qorshayga labaadna kan waay qorshahan koowaad uu ii shaqayn waay qorshahan labaadaan rabaa inaan isku difaaco inaan muxuu ahay aan saas usii qorshaysto laba ahayd soo maahan taas ila marka hore inaan kontroolka maskaxda miyalin halinta yani mind control inaan sameeyo kooga hor saydariyadii oo caqligii maskaxda gacanteeda ay soo gasho kadibna aan muxuu ahay qorsho aan samaysto qorshihii kadib haddana taargad aan samaysto intee ku wajahana haddii meesha aad ku wajahanta aqoonin jihooyinka dhan ay iskugu kaa mid yihiin midig bidix horay gadaal hadhow waxaad noqonaysaa qof dhexdaan ku dhumo oo markuu soo kacabo intee ujeestaa bidix ma ujeestaa midig ma ujeestaa laakiin
aniga aan taargadaan rabaa inaan muxuu ahay aan sameeyo sida aniga aaminsanahay booska saddexaad taas ay igu jirto maskaxdii markaan soo xakameeyey oo qorshe aan sameeyey taargad haddana aan sameeyey kadibna wixii aan sameynayo dhan meel aan ka arkaayo aan soo dhigo oo soo diyaariyo waa habkii aan ku dhabayn lahay tatow tusay noqonaysaa luqadda finishka yacni marka koowaad sooni talma waayo kowga hore miyalan hallintay noqotay maskaxdii controlkeedii qorsheyntii oo suuni talma markaas luqadii aniga aan wax ku bartaan ku sharxooyaa suuni talma qorshihii markaas kadib haddana tavoited oo taargetka ah markaas kadib haddana tatow tus oo ah ka dhabeyntii habkee uga dhabeyn karaa inaan sabuuradihii wax walba aan kala reeyo wixii cuntadii aan soo gatay dhirteedii wixii oo dhan xagga aan dhigdhigo sindheega meeshii ay ku dhadhacaayinoo bidix markaan u socdaan arkaayo midig markaan u socdaan aan arkaayo sabuuradii aan ku qortay jadwalkii cuntada aan isku caateen lahaa ay igu sawiran tahay oo marka aan raba inaan shiitaba aan aadayo qalimaan kala duwan oo cagaar jaalle gaduud waxaasoo dhan sabuuradii aan ku qoro buuggii aan ku qoro buugga hadda aan muxuu ahay ku diyaarinayo kaleento buuggii aan saas u rinjiyeeyo aan ujeedinaan jeclahay buuggii aan ku qoraayo saas aan u rinjiyeeyo oo meel walbaba dhinacayga markaan fiiriyaba dhirtii iyo macalqalimaantii wixii aan qoray oo dhan ay isku wada qurxan yihiinoon niyadaydii iyo farxad ay igelinayso oo waxyaabaha ii suurtagelin karo tatow tuskii oo ahayo qaybta afraad ku jirto qayb shanaadaa jirto oo ah arvionti qiimayn oon qiimayn karo yacni markaas kadibna wixii aan meesha aan kasoo bilaabay nuqdadii aan ka imid iyo nuqdada aan u socdo mastaradeedii intee sameeyey 0.1 0.2 siqidayda inaan la socon karo taas haddana aan samayn karo oo booska shanaada kadib haddana isla xisaabtan waxaasoo dhan anoon soo dejinin oon soo sameynin ma sameeya ani marka inay xalay usoo dhacday waa iscaateyna baf waa bilaaba waxaa laga yaabaa maalinta iscaateen aan soo magacaabay inaan kusii siqooyno hadda 5 6 7 maalmood ay tagayso oo maalinta aan ugu talagalay maalmaha waan ka ogahay aniga laakiin intaan horta berberinkii isdiyaargaleentii iyo faalmista u tuminen u diyaargarowgii aan soo wado maalintaas markaan ku imaanaya macnaha cunta iga dhiman oo suuq u aadaan carara ma aha wax walba oo muxuu ahaay oo qorshihii aan sameeyey oo dhan darbiyadii way ku dhagan yihiin dharkii aan isku cabir xagga yaalin miisaankii cuntada ugu yaalaa miisaankii kaloo aan kori lahaa xilliga aan kori lahaa wax walba darbigii aan ka arkaa si waxaan rabaa isbuucan markii aan koro isbuucii hal mar aan kori doonaa muxuu ahaay miisaanka kadibna intee joogaa nalada waa laa ilan joogaa waxaan umaleeyay inaan joogo janalkii kaleento marka isoo naqa oo isoo celiya micnaheeda aniga iscaatees midaasaan ka aaminsanahay walaalihii kalena waxay ka aaminsanaayeen oo aniga la soo xiriiri in maalintii 14 kusoo dhawaaqay 15 aan bilaabi rabo inaan ordaayo oon soconayo oon boodayo ma ah marka xagga waxaan ugu talagalay inaan cashiro ku bixiyo inaan wax walbo ani aan sameynayo tilaabo cuntadii aan shiidaayo wixii aan qabanayo wixii aan walaalihii marka way la-yihiin ilaa hadda ma garan karo ani marka meeshii ay ka socoto xaggayga wax walbo the best way wadada ugu wanaagsana aan ku shaqaynayaa oo ah inaan wixii aan la rabo walaalihii inuu soo gaaro waan soo koobiyey waan soo qaaday linkigii hoosaan soo dhigay whatsappkii qaarkii aan ka gaaray waxaan dhahay linkiga waa kaasaa muxuu ahay janalka meesha la galaayo haddana waxyar kadib waxay soo dhacaa 5 6 7 message oo idhahaayo niciima janalkii uma jeedno waxaan ka codsanaa muuqaalkan hadda aan soo duubooyo haddii aad dhagaysan weysid inta ani iisoo qorin gal meesha commentiga waa soo dhigaa linkiga oo muxuu ahay janalka kaleento saa oga muxuu ahay saa u heshid uu kuu qaado uu kuu geeya xagga yacni xagga markaan joogno dadkii joogayna waan usoo diro waxaan dhahay walaalayaalow dadkii hala raadiyo oo anaga kaligan inaan luuqan soo galno waa laga fiican yihin insha allah taasaa idinka codsanaa halla dadka ha iswargeliyaano ha isu sheegaano kommentiyada qaarkood markaa ku aragtiyo niciimo muxuu ahaay janalkii kale uma jeedi haddaa ani arki waayo commentigaas adiga iyo daawanays aa aragtid u jawaab dheh walaal meeshaasay soo dhigtay ka raadso aan qofka kale aan isii wargelino oo yaan la sugan kaliya niciimo may kasoo jawaabta inaan arkinaa laga yaaba qofka messagekii warsanayo qofkiina uu baarkin ku jiro na sugaayo goormaa laga soo hadli doonaa arrinkaan oo leeyahay marka waxaan kaa codsanaa haddii aad qof soo qoray commentigiisa aad aragtid niciimo aawa janalkii kale ama aa aragtid su-aal meesha aan uga soo jawaabay oo la arkaayo u jawaab adigan insha allah oo idinka codsanaa wada shaqaynaa la yidhaah yacni ruhman tuki waa vertage tuki qofba qofkii kale waa iskaalmaysi waa isku xirnaan waa wada socosho
وإسفوذين أنا كل جاي إن شاء الله يلي سوق سؤال مركل إصور سؤال مركز نعيمان يقول سعوته وما عافمات كوسابسن أما تلوين كوسابسن وانكسر جوابه لكن نعيمة لينكي قاوي وكلا إنه وجانل كلا أنت مركل يورسو هذا ده أكتر وخر أفكار نعيمه هالكسي يقصوا هذا الشيء وام بدنا حالي صور سان نعيمة تليفون كان أبانا الله أبا إنتي قال سحرير كلا هذا ده أساسه كل قف كسي يورسنا نا أكنا نمبر كذا وديك قف كماش أنا أركينا على قف كل بو إرادينه أنا وذا شقيسان ميامس أنا وذا شقين أنا سو كالمينو يعني أنا أدونك مدة ما أنت جان قاضي كجذبتي يعني وعيابه وشين ويل وحين ماي هذا قف كانوا شيء جيد هذا أنا دقائق كرت بدنا أنا وحليب القاقة أهر له وصعدا الجوهر مركا قفك كلانت لو جعشة وناق ودريسد وروس لكن إن محيابي أنك إيمان إن شاء الله يالله نقولي عندي لا وحلا إلا قريب وحلا إن لي قف كان كلانت نسوق بعينه ودا أنت ودا دواتنا على وتسكره ما قرناه محسميني قفك يتستر دوك ير ما قرناه أو يقان أو أوكي ما عرفنا ودا قاعد حدا كدعل تركيا أن صامر كدعل ولا لو وكبريا من بلايا دنك لها ما نقرناه يتس ما قرناه بري أديكي والله يسود داش ورفاد مركاتك نش قفك ماشي بتاعي وكاغا وريا waxaas wax fiican ma ah walaalkaada wanaag la jeclaaba la yiri hortiisa ah heshid asla jeclaana wanaag qofkan asal lacagtiisa wato asa soo gadanoy ana hada barnaamijkan maxaa sameeynayaa oo iscaateeska oo waxaas oo dhan soo gudbina hal qof inta suuqa geey qarash lacag cabirka ugu yar oo caloosha ku xirnaa muu soo gadooy laakiin ina iraa cabirkan waa la isticmaalaa asaabaha qofka la wisro baxa qarashkiisa asaawat suuqa asaataga asa soo gadanaa markuu soo gatay wixii ay anfacaan أنا بدي أهلا بعته جزاك الله خير نعمة دي آخر إلهي أكو أنا الدنيا نعمة الله كوسي آخرنا جنة الله كوسي دعاء كهلا عني لكن ما كان وحي أن أقارنه مالي أنا مركز ودوين أمرنا وده كله ويسد يقف كعدم بيو يسوع جار عمله محوها إسكي جحرنا ما هن وكسو جار كرا قف كار إلهي وتوك دافع كرا هذي لو دافعنا هدرفن هذي لو سو جارنا هدرفن لكن شيء وده عادي مركز إلهي نكوف وضينا ولا سلنا مركز أنت لكن إسكبريش الجريني ووحول بوحة كلا بوش إسكسينين تاسوا وح على الدقائق من الرسولين يا عيال قارنا هاي محو هاي محد عربها مرصدها مركل ويرا أو كلانت دي أترى كورس اللي عديها مرصدها هذو فاسلين مرسنيز خير عف ماذا السلام عليكم الله ولا يالو إن شاء الله جانا الكلانتو ضدك على وضع المامو سي أو جودة فائدة سنو energy ku bixinooya waqti ku bixinooya waxaan ugu tala galay intii qofooda dhorkii boqol ila soo xiriirtay inay imaadaan xaga in channelki subscribe la yiraahdo xataa ani muhiim uma arko waxaan u arkaa in la share gareeyo oo la gaarsiiyo dadka kale inta u baahan iyo in muxuu ahay comment la soo qoro oo su'aalihii munaaqashadii inaan qorni aan ka dareemo la kala faa'iideysto muxuu ahay like iyo subscribe iyo markii la dhanaay waa meelaha kale markii la joogo laakiin channelkaas subscribe kiisa muhiim ima sababtoo waxa ugu talgalay عجلوين joogta ah hadana keed ah inuu noo noqdo kaliya ugu talgalay insha Allah hadii aad subscribe tiraad aduu ku anfacaa oo wuxuu ku anfacaa casharka ka socdo iscaatees kaliya ma ahan hatta waxaad baranaysaa jirkaada iyo cuntadii kugu habooneed iyo habka u shaqeyn lahaa iyo xibnaha jirkaada wadan aqoonin hatta xibna qaarkeeda inay kugu jiraan laga yaabo aan garanaynin waa in salaam xadileeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh